waxa ay u soo diyaar garoobeen maalmo ka hor iyagoo si wadajir u soo xirtay dharka calanka dhabanadana ku soo xardhay midabka buluuga ah. waa astaan muujinaysa in dadka wadaniyadu ka degtay qalbiga meel qurana loo wada jihaystay. magaalada caasimada ah iyo inta badan gobolada dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay munaasabado loogu dabaaldegayay 60 guuradii ka soo wareegatay markii gobolada waqooyi ay ku xoroobeen gumaysiga Ingiriiska oo ku beegneed 26 Juun ee 1960. kuwani waa dadweynaha caasimada oo dareenkooda ku muujinaya toddobaadka xorriyadda oo ah xilliyo kala duwan oo ku weyn Soomaali weyn, iyagoo dareenkooda la wadaagaya muqbaahiyaha telefishinka caalamiga Somali News ayaa waxay ka hadleen qaabka ay ugu diyaar garoobeen toddobaadka xorriyadda oo ah maalmo qiimo ku leh bulshada dhexdeeda. waan ku faraxsanahay barnaamijka toddobaadka xorriyadda. aad ayaan maanta u faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijkan. way diyaar garowga dalka waran iyo dareenkaaga way ka muuqataa astaanta diyaar garowga dareen ahaan dareenkayga iyo xamaasadeeda lama soo koobi karo. aad u kacsan tahay waan ka dareemi kartaa saa u labisanahay markaasa way imisa baad diyaar garowaysa wallaahi kooda bisha soo wada koodhe waa sugay xamaas aad u weyn ay ugu heysay. adigoo toddobaadka xorriyadda u daaldegaya weliba maanta ay tahay maalintii 26 Juun xornimada gobolada maxaa suugaan ah ugu tarjibran? wallaahi suugaan horta aad u badan yihiin suugaanada loogu talagalay 26 Juun oo halkan lagu soo koobi karo. saasay tahan hal xabad lagu tuuraa goormaan la naanay 60kii lugooyadiina daysay 26 Juun goormaan la naanay 6 saac goormaan la naanay koodi luulyo laba midowday. ما شاء الله حد هلا سيرو على هاي بس تصدق داوداش التلفزيون يجي نحكي قيبك يقوى فرحة نصيب حلو ولا والله هرت قفكي دلكي سكم كنا دباك وتايم فهمتين هذه أبان وفرحتنا كل ما كنا إمام أو حفظ ساعة عمل مقاومة إنسان سانت أخرج بدنا لكم أنا قيب جلالي لها أورما لنا نية لعيسى لقويدي ندسي تجونا قرما لنا نية لعيسى لقويدي ندسي لما بدوني قرما لنا نية لقويدي ندسي وادونا ولا لك مقعقة عايشة والله لما سو كوي كرا والله مركا لواتن كبريسا بلا ديار كروتي بسم الله هذا هو دبي سوماليس مقعيقو ماد عبد الله محمد شيخ أو شيء gobolka Banaadir khaasatan degmada Kaaraan. wallahi maanta dareenkay ma soo koobi karo aad u faraxsanahay sababtoo ah maanta wax iga muuqdo waxa calan waaye calankan sheeg waxa sheeg isku diyaarinay ilaa sheeg 20 bishan 20 Juun ilaa 26 oo maanta ay ku beegan tahay lixdaas bir waa dabaaldegay insha Allah waan sii wada doonaa ilaa 1 Luulyo waa sii wada doonaa insha Allah. waa maasantahay magacaygu waxa waaye Abdiraxmaan aad baa u xamaasaysanahay waa kana calankeena quruxda badnaa damaashaadka dadka Soomaaliyeed Muqdisho aad baa loo kacay ما شاء الله ku faraxsanahay waan xamaasaysanahay. magacaygu waxa la Cabshuur Maxaa Cali aad ayaan u faraxsanahay maadaama ay tahay maalmaha xorriyadda marka dareenkayga ma cabiri karo waa aad ayaan u faraxsanahay waan dareemi kartaa laamiga sidii loo buux dhaafiyay meelaha lagu damaashaaday intay buuxsameen inaan laamiga taagana u jeedaa. way adiga wada buluuga tahay ala oogiyalahay marka dareenkaaga wallahi tooni aad u faraxsanahay maadaama maalinta xorriyadda ay tahay xilliga oo ma aragtay maalmihii oo calanka oo ma aragtay gumeystaha aan ka xorownay tahay marka aad u faraxsanahay farxadeyda hay sare waa sax. haddii aan wax yaro dib u milicsano taariikhda markay taariikhdu ahayd 26 Juun 1960 waxaa xorriyadda qaatay goboladii Soomaali waqooyi kuwaas oo dagaal culus la galay gumeystihii Ingiriiska fagaaraha qayriyadda magaalada Hargeysa oo isugu soo baxeen dad badan oo u dabaaldegayay guusha xorriyadda ayaa waxaa masraxa gabay dhaxalgala ka tiriyay Abwaan Cabdullaahi Suldaan Timcad ee gabagaasi oo hadda bulshada caan ka dhex ah waxaa loo yaqaanaa ka nasiib
kana saar. haddaba munaasabadahan waxa ay qayb ka yihiin maalmaha toddobaadka xurriyadda oo boqolaal dadweyne ah ay isugu soo baxeen fagaarayaasha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyadoo maanta ay ku asteysan tahay maalinta 26 Juun oo ah maalintii xornimada ama heeryada gumeysiga iska qaadeen gobolada waqooyi iyadoo toddobaadkan oo idin loo dabaaldegi doono maalmaha guud ee toddobaadka xurriyadda oo xitaa ay ku jirto 1 Luulyo oo ah markii xornimada ay qaateen gobolada Koonfureed.